saaxiibayaal halkan waa galka media kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku dul istaagi doono Cali Gudlaawo ka degay gudoomiye magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaal xooggan oo ka socda magaalada Beledweyne xaaladda oo qasan ciidamadii kacdoonka gobolka Hiiraan oo isku hareereeyay guriga uu degan yahay Cali Gudlaawe gorgor iyo halam cad oo loo awood sheegtay Beledweyne oo xaalad qasan maanta ku jirta iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolkaas aan ku eegina warbixinteenan balse marka hore nagu soo biiro subscribe inoo saar YouTube-keena galka media si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka waa hagaag marka hore aynu ku bilaawno safarka Gudlaawe ee Beledweyne iyo waxa maanta ka soconaya gudaha magaaladaasi madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaawe Xuseen ayaa markii ugu horeysay iyo markii la doortay hoggaanka sare ee Hirshabelle maanta ka degay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Gudlaawe iyo wafdiga hogaaminaya ayaa ka soo kictimay Jowhar waxayna toos uga degeen garoonka Ugaas Khalifa ee Beledweyne halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay safarkan waxa madaxweynaha Hirshabelle ku helinaya mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa isla markaana qayb ka ah dadaalada xalka lagu raadinayo Beledweyne sidoo kale waxa Cali Gudlaawe wafdiga uu horkacayo loo sii galbiyay dhanka madaxtooyada oo maamulku leeyahay Beledweyne oo ay ku soo dhaweeyeen ku-xigeenkiisa Dubageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiil ciidan ammaanka Beledweyne ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay waxaana inta badan la xiray wadooyinka magaalada si looga hortago rabshado ka dhaca magaaladaasi oo qaybo kamid ah ay ku sugan yihiin ciidamo gadoodsan oo la magac baxay kacdoon gobolka Hiiraan madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaawe ayaa kulamo tashi ah ka bilaabi doona Beledweyne kuwaas oo looga hadlayo inta badan tabashada reer Hiiraan sida ay inoo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo la hadlay galka media Beledweyne ayaa kamid ah magaalooyinka waaweyn ee loo qorsheeyay ka dhacaan doorashada kuraas kamid ah xubnaha golaha shacabka ee Soomaaliya taasi oo qayb ka ah safarka Cali Gudlaawe maanta ku tagay magaaladaas oo xarunta gobolka Hiiraan si kastaba arrimahan oo idil ayaa ku soo aaday iyadoo weli Generaal Xuud uu ku sugan yahay Muqdisho iyo sargaal lagu magacaabo Nur Dheere ee ka soo horjeesteen abaabulka ka socda halkaas iyagoo si weyn uga biyo diiday safarka Cali Gudlaawe maanta ku tagay magaalada Beledweyne sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee gobolka waxay sheegayaan in dagaal xooggan uu ka soconayo iminka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kaas oo u dhaxeeya ciidamada gorgor haram cad iyo sidoo kale ciidamada kacdoonka Hiiraan oo si weyn uga soo horjeeda tagista Gudlaawe ee magaaladaasi wararkan kaleena Beledweyne ayaa waxay sheegayaan in ciidamada la magac baxay kacdoonka Hiiraan ay madaafiic xooggan ay ku garaaceen garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaaladaasi halkaas oo ka soo degay saacado ka hor Cali Gudlaawe Xuseen madaafiicda oo qaarkood ku hobatay garoonka iyo nawaaxigiisa ayaa waxa xigtay hoobiyaal kale oo ay ku jawaabayeen ciidamada Djibouti ee ku sugan garoonkaasi sidoo kale waxa israaseen kooban ay hadda ka socotaa magaalada gudaheeda taas oo u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwa ka soo horjeeda safarka Cali Gudlaawe ee Beledweyne macadda qasara ka dhashay dagaalkan iyo weerarka madaafiicda ah ee la beegsaday garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa waxaana weli xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan xilli dagaalku uu ku sii xoogeysanayo xaafadaha dhanka waqooyi ka xiga magaalada gaar ahaan halka loo yaqaan xerada Lamagalaay oo ku sugan yahay madaxweyne Gudlaawe ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya magaalada iyagoo xiray inta badan wadooyinka halka dawladka ay ku sugan yihiin ciidamada gadoodsan oo madaafiicda ka soo tuurayaan dhaqaaqyada cusub ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen guud ahaan magaalada sida ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka oo iyaguna hakad galay lama oga sida ay wax noqon doonaan balse waxa marar badan dib u dhac ku yimid safarka madaxweynaha Hirshabelle sabab la xiriira xiisad ka jirta Beledweyne si ka sabab booqashada la filayo Cali Gudlaawe uu ku tagay magaaladaasi ayaa waxay mar kale murjinaysaa xaaladda gobolka iyadoo dhaqaaqyada ciidan ee gobolkan ay u muuqan karto mar kale in xaaladdu ay sii cakirnaan karto gobolka Hiiraan waxaa hadda ka soconaya dagaal weyn oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa kacdoonka reer Hiiraan kuwaas oo isku ugaasanaya bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadii 5 bilood kadib Cali Gudlaawe ayaa maanta waxa uu awood ciidan uu ku tagay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan awoodan ciidan waxa si weyn uga shaqeysay villa Soomaaliya oo iyadoo damac weyn uga jiro kula saala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo socdaalkiisa dad shacab ah loo dilay dad badan ay ku waxyeeloobeen qas iyo dhibaato iyo halaagna ayaa ka taagan Beledweyne taas oo shacabku dhibaato weyn ay ku qabaan magaalada waxay ku jirtaa qatar weyn oo dhanka amniga ah madaafiic lagu garaacay xerada Lamagalaay iyo halka uu ku sugan yahay Cali Gudlaawe dagaal ayaa ka soconaya iminka gudaha magaalada Beledweyne waxa la godoomiyay Cali Gudlaawe ciidanka Beledweyne la geeyay inay dadka dileen waxay mar kale muujinaysaa in gobolka xaalad qatar u galay shacabkii ayaa la xasuuqaya maantidii gobolka ay la kor dagaalamaya Cali Gudlaawe villa Soomaaliya dantooda siyaasadda kaliya ay eeganayaan balse ma eegayaan qasaaraha shacabka soo gaaraya iyo ganacsiga dhibaatoobaya ee ku sugan gobolkaasi Cali Gudlaawe Xuseen 3 maalin oo xiriir ah
ayuu joogi doonaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. sida xogta aan helnay ay muujinayso, madaxweynaha Hirshabelle wuxuu noqonayaa mas'uulkii ugu horreeyay Hirshabelle ah oo loo diiday sanadii 5 bilood inuu tago gobolka uu asaga madaxweynaha ka yahay, balse isagoo cadays saaray villa Soomaaliya si cadna uu sheegay in Jowhar doorashadiisan ka dhicaynin, ayaa markan villadu ay qaaday talaabooyin military oo awood ciidan lagu geeyay Cali Gudlaawe magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xaalka maanta uu qasan yahay beledweyne waa dagaal, waa go'doon, Gudlaawe amnigiisa waa loo baqayaa, gorgor iyo haramcadna waa loo awood sheegtay. ciidamadii kacdoonka Hiiraan oo aan kala harin ayaa isu geedaamay bartamaha magaalada iyo duleedkeedaba, waxayna madaafiic ka tuurayaan duleedka magaalada gaar ahaanna dhanka Buuraleyda, iyagoo beegsanaya garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif iyo sidoo kale xerada Lamagalaay iyo xarunta gobolka Hiiraan oo Gudlaawe safar iyo booqasho kala duwan uu ku bixiyay deegaanadaasi iyo sidoo kale xarunta maamulka ku shaqeynayo. magaalada beledweyne maanta way qasan tahay, xaaladdan waxay u muuqataa mid halis sii galaysa. Jenaraal Xuud oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa horay u sheegay in go'doon la geliyay isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho maadaama loo diiday inuu tago magaalada beledweyne. hase yeeshee wuxuu baaq u diray jabhadiisa ku sugan gobolka oo uu ku baaqay in ay ka biyo diidaan in Gudlaawe uu tago magaalada isla markaana ay ka hortagaan, taasoo hadda hirgashay isla markaana ciidamada kacdoonka Hiiraan ay weerar kala hortageen Gudlaawe markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee beledweyne. gobolka Hiiraan waxaa qasaya siyaasad aad u qalafsan, waxaa ku loolamaya quwado aan loo jeedin balse daha gadaashiisa ka maamulaya siyaasadda gobolka. Farmaajo iyo Fahad Yaasiin damac weyn ayaa ugu jira 5 kursi oo taala magaalada. reer Hiiraan waxay si weyn uga careysan yihiin habka maamul ee la doortay Cali Gudlaawe iyo sida madaxweynuhu ku noqday. siyaasiyiinta gobolka ku kala qaybsameen tagista Gudlaawe ee beledweyne iyo qaabka loo wajahay xaaladda gobolka. Rooble iyo xukuumaddiisa amarkoodii iyo go'aankii ay dib loo soo celiyay ciidamada ma suurtagelin, oo waxay u muuqataa in qorshihii loo geeyay beledweyne maanta uu hirgalay. waxaana sidoo kale hadda la filayay in talaabadu qaadi Rizal Roble iyo sidoo kale Jenaraal Xuud oo Muqdisho ku wada sugan iyo waxa ay ka sameyn doonaan gobolka, maadaama Gudlaawe villa Soomaaliya qorshooda ay cadeyseen awood ciidanna Gudlaawe ku tagay beledweyne, balse awood ciidan isaga lagula hortagay. reer Hiiraan way kaceen, beledweyne maanta way qasan tahay, dagaalku weli wuu soconayaa, qasaraha lama oga halka uu gaarsiisan yahay. la soco daawade wixii warar ku soo kordha xaaladda gobolka Hiiraan, qalaasa ka taagan gobolkaasi, safarka Gudlaawe, kulmada uu la qaadanayo siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka, iyo waxa laga dhihi doono saacadaha soo aadan waxa ka soconaya beledweyne iyo gobolka Hiiraan oo xaalkeedu maanta loo sahla. tan iyo kula dambe daawade, nabadgelyo.